وانا تي ان ايدين يري برلمانka Jubbaland wax ma diidayaal baa la yiraahdaa magaca baarlamaanka inaynu inta ka bedelo wiilashii Axmed Madoobe niraahno yaa horta wanaagsan Soomaalida maqli jirin telefoon la yiraahdo Samsung dile iPhone dile Soomaaliland maqli jirin horta nimankan xildhibaanada Jubbaland la yiraahdo waa xildhibaan dilayaal hatta kama qadeeyaan markay wax u ansixinayaan dadka laaluush baa la siiyaa hatta laaluush ma qaataan baabuurka shida loogu shubaa sabaayad yar baa la siiyaa ku dhuftaa la yiraahdaa wax ansixiya qadadoodana dabka loo saaraa inay cambuulo tahay Ilaahay baa naga og yeeni bariista yeeni hilib tahay dabka loo saaraa anu inay sixran yihiin iyo in niman la xaniye siibay oo aan waxba diidi karin waxna yeeli karin inay yihiin ma aqaane maanta inta la isugu yeeray ee odoga qalinka ugu duugeen maalmahan soo socdana gudigu magacaabaya gudigaas baana doorashada Jubbaland ku dhawaaqi doona doorashada Jubbalandna waxay dhici doontaa Axmed maanta baarlamaankiisii waa meel marsaday oo wuxuu ka ansaxsaday in ilaa inta uu nool yahay uu tartami karo dawladdu waa iyadii sanad ugu dartay maamul goboleedyada Axmed Madoobe wuxuu noqdaa shakhsigii ugu horeeyay ee jabiyay heshiiskii uu maamulada la galay Xasan Sheekh Maxamuud waxa ku dhacay nafsiga yagiiba helay inagoo diidan ninka Axmed Madoobe ee meesha iska fadhiya ee horumar diidka ee Kismaayo iska fadhiya inagoo la dagaalsan oo ku hayna war doorashaha la qabsado war aan wax qaybsano war cadaalad hal la sameeyo war xukunka Jubbaland anaga xaq u leh inagoo ku hayna yaa Xasan anagi noo bajaqiyay Axmed Madoobe maantana asagii bay haysataa Axmed waana kufsada horeyna waa noo haysta si kastana ha noo maamulaa ku cishcishto taasna waxa keenayo kiyaatiga meesha jooga iyo ashabaabkan inaga iyo asaga inoo dhaxeeya ee hadii aysan jiri lahayn kuwaasi awramale baa Kismaayo ka qabsan lahayd Axmed Madoobe awood reerkiisu leeyahay iyo awood uu asagu leeyahay Axmed Kismaayo kuma haysto ee wuxuu ku haystaa awoodda kiyaatiga iyo awoodda nimankan duurka jooga oo maaragtay dadkii is abaabuli lahaa oo Kismaayo agdagi lahaa aan ogolayn waxaan rabaa inaan Axmed xasuusiyo waagii hore oo xukunkii Barahiiraale uu Kismaayo ka jiray ma jirin qof mareexaan oo ay maskaxdiisu ku jidho in Axmed Madoobe ama nin ogaadeena uu Kismaayo ka talin doono muddo dheer dadkii Kismaayo nugula challenge gareynayay oo maaragtay Kismaayo nugula loolamayay maamulkan ma jeerteen buu ahaa oo ma jeerteen yeynu ka shakisanayn maantana ogaadeen oo Kenya wata oo maaragtay dabaabaadkii kiyaatiga saaran baa ina xukumay waxaan leeyahay Axmed Madoobe intaad Kismaayo fadhin ka dhid fadhi intaad Kismaayo fadhin ka dhid fadhi jaaniska yagaan sugaynaa waqtiga yagaan sugaynaa intaad ku fadhidid in ka badan baynu ku fariisan doonaa wax dastuur la yiraahdana ma jiri doono bari hadii nin mareexaan yimaado dastuurkan aad samaysatay oo dhan waa laalayna aan rabaa inaan u sheego wiilka ogaadeen ee maanta ku faraxsan wax Axmed Madoobe sameeyay inuu dastuurka inta laalo maalin walba dhaho waa istoorto oo madaxweynaan ah oo ku fiirsanayo isagoo mareexaan ku xumaynayo waxaan u sheegayaa bari ka maalin markaynu xukunka Jubbaland qabanno ogow dastuurkan uu Axmed sameeyay waa laali doonaa midaynu inagu samaysanay yaana Jubbaland ay ku shaqayn doontaa haddii aad ilaalin weydaan waxa la wada leeyahay Jubbaland qabiilo badan baa degan Soomaali oo dhan baa degan cadaalad bay wada rabaan dawladnimo ay wada rabaan hal reer male laba reer male awra male baa wax kale biyo maal baa wax kale jareer baa wax kale mishunguli baa wax kale oo taladeeda leh gaal jecel baa taladeeda leh hawi oo dhan baa taladeeda leh daarood oo dhan baa taladeeda leh cid walba Jubbaland taladeeda leh haddii marka taladeeda la siin waayo oo dadka la tixgelin waayo de nin walba maalinta uu joogo hasha soo u maaro
isaga yaqaan soo maali lahaa niman yow marka Axmed Madoobe maanta baarlamaankiisiiba isugu yeeray waxay qalinka ku duugeen in Axmed Madoobe uu tartami karo inta uu nool yahay Axmed Madoobena wuxuu maanta jabiyay heshiiskii asaga iyo Xasan ka dhaxeeyay dagaal baana u bilaabmi doona hadii uu Xasan naf leeyahay weey maalmaha soo socdana waxa laga qorsheynayaa magaalada Kismaayo oo ololaheedii uu ka muuqda in doorasho guddiga doorashada uu Axmed Madoobe magacaabi doono in doorashadiisii yartahayd ee jacburka inuu qabsan doono inuu soo noqon doono Axmed Madoobe doorasho la og yahay qofka soo noqon doona waxa shaki kaliya ku jira nimanka baarlamaanka noqon doona waa la yaqaanaa ninka madaxweynaha noqon doona waa la yaqaanaa madaxweyne ku xigeenka baa shaki ku jira cid noqon doonta qorshahaas buu horta wadaa Axmed Madoobe qorshahaasna wuxuu dhabarka ka jabinayaa qorshihii Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in maamulada hal sano loogu daro doorasho qof iyo cid la gaarsiiyo doorasho la ogol yahay oo guddigeeda dawladdu ay magacawdo inay Jubbaland ka dhacdo madaxweyne Xasan sidaas uu qorsheynay mana hirgeli doonto ayaantii hore waxa lagu yiri odayaal reer gadaa oo mareexana inta u tagayba waxay dhaheen warniyo Axmed Madoobe qiyaanadiisa ma taqaanid war maalintii 2 sano ku hadhay isna sanad u haray mucaaradkuna kugu bato Axmed waxba kama qaadi kadib maanta haynoo jabin maanta aan la dagaalano maanta doorasho la qabto waa diida ma ana og waxaan rabaa inaan marka Xasan Sheekh Maxamuud sheego Axmed Madoobe waa soo noqonaya kursigaaga baaqil galayo isagaana lagu doodi doonaa kiisana si xardhaga leh yuu u soo noqon doonaa shalay baadna ka shaqeysay maanta kama wada shaqeyn inuu Axmed maanta guddi magacawdo inuu damac ka galo inuu soo noqdo adaa u yeelay wayna u ahaanaysaa aan rabaa saaxiibada halkaan inoogu jira inaan u sheego YouTube-keena ku xiran maamul goboleedyada waxa dhex yaalay banoonigaas oo u baahan in la baaso waxa walwal laga qabayaa baasi doona ma koonfur galbeed ma Puntland ma Jubbaland ma baalaha maanta banoonigii Axmed Madoobe baalaaday banoonigaas waxa weeye maamul goboleedyada iyo Xasan waxay ku ballameen min hal sano in loogu daro oo doorasho qof iyo cod la aado golayaasha deegaankana ay dhisaan maamul goboleedyadu waa saluugeen oo waxay dhaheen intaad mandate ka haysataan oo wax magacaabi ka dhaan yaan la dhaafi qiyaano Xasan ka wataa Axmed Madoobe baan noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee si toos ah Xasan uga hor yimaado qorshihiisa maanta baarlamaankii uu isugu yeeray wuxuu ka ansaxsaday inuu tartami karo inta uu nool yahay qalinkeena ugu duugeen anuu inay sixran yihiin iyo in niman la xaniye siibay oo aan waxba diidi karin waxna yeeli karin inay yihiin ma aqaane maanta inta la isugu yeeray iyo odoga qalinka ugu duugeen maalmahan soo socdana guddigu magacaabaya guddigaas baana doorashada Jubbaland ku dhawaaqi doona doorashada Jubbalandna waxay dhici doontaa tusaale inta maqaaxid tagtid hadaad haaf bariis dalbatid hadii lagu dhaho doorasho Kismaayo ka dhacayso oo Axmed iyo nin kala tartamayo waxay soo kala baxayaan oo Axmed uga guuleysanaya inta aadan haaf bariis cunin taasina waxay ku tusi kartaa in Axmed asagu waxaan u walaaqday wiilashiisii ay yihiin qoriyo lagu hayo waxaasna doorasho lama dhihi karo Axmed Madoobe asaga wuxuu raadinayaa qofkii la tartami lahaa wuxuu dhan baarlamaanka markuu dhisto gudiyada uu magacawdo meesha lagu qabanayo uu dhisto waraaqadaha tartanka lagu galayo uu jarto koombooyinka codtirinta uu samaysto markaas kadib uu goobayaa kii la tartami lahaa mid yaro mareexaan oo bahdilan ama mid yaro ugaadeen oo bahdilan buu u yeerayaa dhar buu u gelinayaa meel buu fariisinayaa wuxuu leeyahay ninkan laba codsiyo inta kalena waa aniga sidaas ku noqonaya madaxweynihii Jubbaland horaana ugu naqaan Xasanna waa naqaanaayo waa nin jilicsan oo liita nin rag wax isku oran kara maaha nin Axmed la goosgoosan kara maaha shalay baynu nir Axmed hanoo jabin waa inoo jabin annagu u jabnay laakiin maanta Axmed asaga Xasan asaga haysataa marka waxaan idin leeyahay
doorashooyinkii la islahaa xaggee ka bilaabmi doonaan kismaayo ka bilaabanaya axmed iyo xasan iyo kismaayona waa kala tegayaan sidoo kale maalmaha soo socda koonfur galbeed bay ka bilaabayaan maamulada kalena hadii la wada bilaabay waxay ka joogaanba male xasanna mid joojin kara maaha sidoo kale waxaan idinka codsanayaa saaxiibada youtube-kayga ku xiran waxaan ka codsanayaa si gaar ah uga codsanayaa saaxiibayaalow youtube-ka waa nagu cusub yahay haddaynu ku soo biirnay waxaan idinka codsanayaa leegta la dhaca si uu meel fog noogu gaaro noo sheer gareeya qodobka ugu dambeeyo aan ku darsanayo waa gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka wiilkii Majeerteen oo maalinkii uu yiri dastuurka Jubbaland lama furi karo Axmedna in ku filan waa tartamay ha hor dhaafa Jubbaland ninkii yiri doorasho xor iyo xalaal aan la qabanaya ninkii yiri ee gudoomiye ku-xigeenka ahaa maalinkii uu hadlay habeenkiisa baa lala baxay inuu nool yahay inuu dhinto cid og ma leh Axmed Madoobe afduubtay isaga la tagay ninka haduu geeriyoodana Majeerteen oo Axmed buu ku maqay haduu nool yahayna waa nin dulaysan oo kulay jariimo loo geystay wixii gaaray xaq ahaan iyo qof ahaan ba isaga lagu leeyay ninka isagu u xirayay nabi suudiisu u xirayay habeen barkii aba gurigiisa laga bax ilaa iyo haddana lama hayo waa gudoomiye dhan oo baarlamaan meesha sida cunqabatayntaas iyo takrifalka iyo cabsida ay ka jidho oo aanan maanta nafteyda ku aamini karin ilmaada reyaal oo doorasho lagu gali karaa mise tartan baa lagu la gali karaa Axmed Madoobe wuxuu jabinayaa iskoorkii siyaad barru jabinaya intaasoo rabaa inuu jabiyo 21 sano waana kii xiiray uu yiri 21 sano baan mareexaan oo Jubbaland joogi doonaa ee waagaas nala hadla